السلام عليكم ورحمة الله وبركاته habeenimo wanaagsan akhyaartana daawanaysa meel kastood ka joogtaan daafaha caalamka ku soo dhawaada youtube-keenan Badiya Bari channel wararka caawa waan idiin hayno waxa ugu dooroon ciidamada Mareykanka oo loo diray Nigeria si ay uga hortagaan Boko Haram iyo Iswap Mareykanka oo soo riday daroon ay leedahay Iran taasoo ku soo dhawaatay USS Abraham Lincoln sidoo kale qorshaha dib loogu bilaabayo wadahadallada nukliyeerka ee Mareykanka iyo Iran Mareykanka oo kordhiyay taageerada military ee galbeedka Afrika Abiy Ahmed oo sheegay in khilaafka Itoobiya iyo Eritrea uu bilowday 2021 xilligii dagaaladii Tigreega sidoo kale muwaadiniin Soomaaliyeed oo laga soo celiyay Liibiya kadib khataro tahriib sidoo kale taliyaha booliska Soomaaliya oo qaabilay wafdi ka socda Turkiga tababaro la dardargelinayo weli Soomaaliya ku jirnaa xiisad ka dhalatay suuqa xoolaha kadib askar boolis oo garaacay qof banaanbaxay sidoo kale Puntland oo fulisay dil toogasho ah oo lagu riday Hodan Maxamuud Diiriye markii ugu horeysay haween Soomaaliyeed sidoo kale madaxweyne Cirro oo ka qayb galay World Government Summit kana hadlay maalgashiga caalamiga sidoo kale madaxweyne Cirro waxaa rajeynayaa in Trump Imaaraadka Sacuudigu aqoonsadaan ama maalgeliyaan Somaliland wararka aan caawa idiin hayno haddaan ku bilaabo warka oo fidsan ciidamada Mareykanka ayaa loo diray dalka Nigeria si ay gacan uga geystaan dagaal lagula jiro kooxaha xag jirka ah ee Boko Haram iyo Iswap talaabadan ayaa qayb ka ah howlgallada guud ee Africom ee galbeedka Afrika iyadoo diiradda la saarayo taageerada sirdoon iyo tababarka ciidamada Nigeria si loo xakameeyo argagixisada dhanka kale ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ay soo rideen diyaarad daroon ah oo ay leedahay Iran taasoo ku soo dhawaatay markab dagaal ee USS Abraham Lincoln xilli uu ku sugnaa badda Carabta taliska Sentinamo ayaa sheegay in daroonkaasi uu u dhaqaaqay markabka ujeeddo aan caddayn isla markaana tallaabada lagu soo riday ay ahayd istifaac lama soo sheegin wax khasaare ah ama dhaawac ah oo gaadhay ciidamada Mareykanka sidoo kale wararka caalamiga ah ee maanta waxaa ka mid ah qorshe dib loogu howlgelinayo wadahadallada nukliyeerka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iran inkastoo la filayo in wadahadallada siyaasadeed dib u bilowdaan haddana khatarta isku dhaca military weli way taagan tahay sidoo kale wararka ka imaanaya Afrika gaar ahaan Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa markii ugu horeysay si cad uga hadlay xilliga uu bilowday khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya Itoobiya iyo Eritrea ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in khilaafku uusan ka bilaabin arrinta marinbadeedka balse uu soo taxnaa tan iyo sanadkii 2021 gaar ahaan intii lagu jiray dagaalkii Tigreega wuxuu ku eedeeyay ciidamada Eritrea inay geysteen biliiliqo hantiyadeed iyo xasuuq ka dhan ah shacabka Tigreega wararka ka imaanaya Soomaaliya waxay sheegayaan sidoo kale soo celinta muwaadiniin Soomaaliyeed qiyaastii 275 muwaadin oo Soomaaliyeed ayaa dib loogu soo celiyay dalka kadib markii ay ku dhaawacmeen khatarta tahriibka ee Liibiya soo celinta waxaa gacan ka geystay hay'adda IOM iyo dowladda Soomaaliya sidoo kale la dagaalanka argagixisada ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya ee hoostaga Africom ayaa wada fuliyay howlgallo military oo ay ku jiraan duqeymo cirka ah kuwaasoo lagu bartilmaameedsaday Al-Shabaab iyo ICIS Soomaaliya sidoo kale dhacdooyinka gudaha warar naxdin leh ayaa ka soo baxay magaalada Gaalkacyo halkaas oo aabbe uu gowracay 2 carruur ah dhacdadan ayaa dhalisay muran iyo hadalhayn ballaaran oo bulshada dhexdeeda ah sidoo kale arrimaha booliska taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeye guute Asad Cismaan Cabdilaahi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay
wafdi sare oo ka socda dowladda Turkiga. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray dardargelinta tababarada iyo aqoon kororsiga ciidanka harimacadka. Dhanka kale, xaalad kacsan ayaa ka dhacday suuqa xoolaha kadib markii askari boolis ah ay garaaceen mid ka mid ah dadka bannaanbaxyada, taasoo dhalisay cadho iyo qayladhaan shacabka ah. Sidoo kale maanta waxaa dil toogasho lagu xukumay magaalada Gaalkacyo. Maamulka Puntland ayaa fuliyey xukun dil toogasho ah lagu riday Hodan Maxamuud Diiriye oo horey u dishay Sabriin Saylaan Cabdulle. Toogashada ayaa ka dhacday caska magaalada Gaalkacyo, waxaana la sheegay inay tahay markii ugu horreysay ee haweeney Soomaaliyeed lagu fuliyo xukun noocan oo kale ah. Sidoo kale, wararka ka imaanaya Jamhuuriyadda Somaliland, madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa sheegay inay rajeynayaan in ay heshiisyo ganacsi la galaan Israa'iil kadib aqoonsigii dhowaan ay siisay. Wuxuu caddeeyey in wadahadallo u socdaan inkastoo aan weli la saxiixin heshiis rasmi ah. Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa sheegay inay Somaliland diyaar u tahay inay bixiso marin lagu horumarinayo kheyraadkeeda dabiiciga ah, halka ay Israa'iil ka filayso iskaashi dhinacyada beeraha, caafimaadka, tiknoolajiyadda iyo dhaqaalaha. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inuu sanadkii labaad oo xiriir ah ka qayb galay shirweynaha World Government Summit oo ka dhacay magaalada Dubai. Shirkan ayaa ah madal caalami ah oo ay ku kulmaan hogaamiyayaal, khubaro iyo hay'ado caalami ah si looga doodo mustaqbalka hogaaminta, hal-abuurnimada, tiknoolajiyadda casriga ah iyo horumarinta nidaamyada dowladnimo ee waara. Isagoo wareysi siiyey wakaaladda wararka Reuters, madaxweyne Ciro wuxuu yidhi, waxaan rajaynayaa in madaxweyne Donald Trump uu maalin u aqoonsan doono. Sidoo kale, waxaan rajaynayaa in Imaaraadka Carabtu iyo Boqortooyada Sacuudigu ay maalgashi ballaaran ku sameynayaan Jamhuuriyadda Somaliland. Madaxweynaha Somaliland oo shirka ka qayb galay. Dhanka kale, nin ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa ka hadlay taliyayaasha, xildhibaanada, madaxdii hore, waxgaradkii, salaadiinta, ugaasyada, malaaqyada, dadka hoggaanka u ah Soomaaliya ee jooga Muqdisho inaysan xaafadaha kala degin oo jas ay degaan madaxtooyada agteeda amba airportka halku ka dhow yahay, si haddii wax u dhacaan ay uga cararaan oo diyaaradaha u fuulaan. Wala daawada waa kan ugu falanqeynayaa wax alla wixii xildhibaan soo noqday, aqal sare wixii soo noqday, wasiir wixii soo noqday, wasiir ku-xigeen wixii soo noqday, taliye ciidan wixii soo noqday, airportka xamar ay ku urdi doonaan. That's why inay airportka rabaan inay u cararaan waxa ku cadeynaya hadda laftigooda ay airportka agdegan yihiin. bal waa sababta taqaana intay baxaan daayniila degi maayaan, Dar es Salaam degi maayaan, suuqa xoolaha degi maayaan, waxara cad degi maayaan, kaaraanta bari degi maayaan, suuq bacaad degi maayaan, baarubax degi maayaan, dhulkan xooshay degi maayaan. Dhammaantood xildhibaanada, wasiirada, ku-xigeenada, taliyayaasha ciidamada kulligood waxay degan yihiin madaxtooyada agagaarkeeda iyo airportka agagaarkiisa. waxay rabaan saacad kasta waxay rabaan inay cararaan. daawadayaal, weli waxaan caawa idiin hayno waa naga intaa. tan iyo intaan dib u kula weynaa habeenimo wanaagsan. YouTube channelkan Badiya Barri, liked, shared, comment, subscribed. Please baalku ma baydaan dhaqaashay akhyaartay oo sii share gareeyay oo comment. aad baan idiin salaamay dhammaantiin. habeenimo wanaagsan. Bye.